guddiga ololaha doorashooyinka ee xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer ayaa maanta shir jiraa'id ku qabtay xaruntooda guud ee gobolka Togdheer iyagoo halkaasina ugu mahadnaqay taageerayaashooda tirada badan leh ee iskugu soo baxay maalintii koobaad ee ololaha u lahaayeen iyagoo dhanka kalena baaq u diray dhammaanba taageerayaashooda kala duwan ee ku dhaqan dhammaanba gobolka Togdheer in ay isla beritoolena sidii si leeg iyo si ka badan ba iskugu soo bannaanbaxaan waxaanay fariinta halkaasi ugu sii dareen inay amnigana si fiican u ilaaliyaan dhammaanba taageerayaasha xisbiga kulmiye ee gudaha magaalada Burco Togdheer waxaan uga mahad celinaynaa sidii quruxda badnayd ee 22 bisha ay soo banaan baxeen sida qiimaha badan leh ee nabadgelyadu ku jirto waxa kale aan ugu baaqaynaa inay maalinta bariya oo ah maalintii xisbigu lahaa iyadana si ballaaran oo mugiyo miisaan leh ay u soo baxaan shalayna reer Muqdisho waxay lahaayeen xisbiga midnimada Soomaaliya ka shaqeynayaan taageerayna waa marxaati cad oo muujinaya xisbiga wadani in ay ka shaqeynayaan midnimadii lagu hungoobay ee 1960kii reer kulmiye guud ahaan shacabka Soomaaliland sida quruxda badnayd ee maalintii soo baxa ku xisbiga kulmiye u lahaa ay uga qayb qaateen iyo gaar ahaan xubnaha kulmiye taageerayaasha kulmiye waxaa laga rabaa inay feejignaadaan oo farayna nabadgelyada inay ilaaliyaan nabadgelyadu waa number 1 nabadgelyada inay ilaaliyaan waxa hadaba maanta laga doonayaa fariinta labaad waxa weeyaan waa maalintii labaad inaynu cududeena tii maalintii hore mid ka badan aynu ku soo baxno runtii gobol iyo degmaba maalintii dhaweyta sida wanaagsan u soo baxay tuulaba